حلكي والبلدوغة دقالو وادشينا بدي والبلدوغة دقالو وادوتي لعكتي والبلدوغة دقالو وادشينا بدي والبلدوغة دقالو وادشينا درجي والبلدوغة دقالو وادشي أهلكي والبلدوغة دقالو والتي دابركي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن داوديال idil ahaantiin goob kasta oo muuqaalkaygu idinka soo gaarayo waa mid kale oo kamid ah barnaamijyada ganacsiga iyo dhaqaalaha ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland daawadyaal barnaamijka ganacsiga ayaa ah barnaamij alaaba aan ku dhiirigelino ganacsiyada kala duwan ee reer Soomaaliland kuwaasi oo nagu talagalnay in ay kaga qayb qaataan kuwaasi oo qayb ka ah kobaca dhaqaale ee dalka isla mar ahaantaasina barnaamijka ganacsigu waxa uu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo dhammaan ganacsiyada kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland لعك بنقيلا وصال بنانك غار وجيرو حبيب الروح برارا مال قبينا لعك بنقيلا وصال بنانك غار وجيرو حبيب الروح يا قوم على بقي وصار له بني وشرفنا عيد الجامع فصار الشوق تجمل كلنا بعده سكان سيسفر بعقلنا لقارو بري هروب ومقلي لارو كما ويسبعين ganacsigu waxa uu ka mid yahay ilaha qaybta ka ah kobaca dhaqaalaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadiniinta Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya siyaasadda dhaqaalaha ee dalka oo salka ku haysa nidaamka suuqa xorta ah iyo ganacsiga furan iyo xasiloonida weheshanaysa nabadda ee uu ku naaloonayo dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay suurto gelisay inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda ganacsatada Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha kala duwan ee ka jira dalka tii ay ujeedadoodu tahay inay iyaguna ka faa'iideystaan dadkoodana uga faa'iideeyaan iyadoo ay u dheer tahay in lagaga maarmo maalgashigaasi badeecadihii dhammaanba dibadda laga soo waaridiyay isla markaana ay lacag adagi waddanka kaga bixi jirtay baryahan dambe waxa soo badanayay ganacsatada Soomaaliland ee maalgashanayay dalka kuwaasi oo ku aaminay hantidooda isla markaana sameeyay ganacsiyo kala duwan iyadoo ay shaqo abuurna u noqotay muwaadiniin aad u tiro badan Golden Furniture waa warshad lagu sameeyo fadhiyada hurdooyinka kuraasta iyo qalabyada loo isticmaalo xafiisyada iyo guryaha dhammaantoodna waxa lagu farsameeyay dalka gudihiisa waa kan maareeyaha shirkadda Golden Furniture Ibrahim oo ka hadlaya sidii ay u sameysantay iyo waxyaabaha ay qabato iyadoo horta fursad weyn noo tahay inaan tusno dadka kale ganacsatada ah ama qaybta ugu muhiimsan ee anaga customerskayga serviceska nu qabano iyo bulshada qaybta weyn ee laxaad kale kaga jirno horta Golden Furniture waxaanu aasaasnay waxay ahayd 2001 ee shirkadda la aasaasay marka qaybtii koowaad lagu bilaabay waxay ahayd aluminium ayaa bariga koowaad lagu bilaabay iyadoo dhinacana laga waday qaybtan woodka ama qaybtan kale ee hurdooyinka ama haday tahay hoteelada iyo waxan kale laga wado laakiin muhiimadda xoog weyn barigaas waxay aluminiumta marka haddana waxaanu ka fikirnay
oo nidhi mar haddii aluminiumta muxuu ahaa shaqadeeduna iska fududaho laakiinse khibradda loo baahan yahay dalka qaybta ugu muhiimsan loo baahan yahay ay tahay alaabtan badanka dhinaca China inagaga timaada ama dibadda looga soo waarido ayaa waxaanu go'aansanay markaasi dalkiina wax ugu soo kordhaan qaybta shaqaalaha ama dadkan xirfadda ku shaqeystay dalkuna ay uga faa'iidaan inaanu bilowno markaa xoogayga saarno qaybtan furniture-ka marka horta muhiimadda ugu weyn taas ay ahayd marka ilaahayna horta uu nagu garab galay imika muddadanu ka shaqaynaynay haddii ay tahay xagga hoteelada waaweyn ee dalka oo dhan ama hadday tahay dhinacan kale xafiisyada dawladda ay ka mid tahay baarlamaanka iyo guurtida xafiiska wasaaradda isgaarsiinta hanti dhowrka waxyaabahaas oo dhan ka qalabaynay xafiisyadaas oo dhan shaqo wanaagsan horta waanu qabanay run ahaantii xagga hoteelada oo kale haddaan sheego kuwa iyaga ugu waaweyn waxaa ka mid a aanu wax u qabanay iyo dee qaar imika soo kacaya qaar hore u jirayba way jireen laakiinse kastamaradeeda ugu waaweyn haddaan ilaa dhowr sheego daciidaasi ka badan yihiin waxaa ka mid a Mansoor hotel oo kale oo wallahi run ahaantii ilaa ayaantii qaybta la bilaabay woodka shaqadeeda iyo MDF-ka dee nala garab taagnaa iyaguna dhinacaasi oo shaqo badan u qabanay oo muxuu ahaa imika hadday tahay Mansoor Berbera Hargeysa anaka labadaba qalabaynay Safari Hotel Alora National Hotel anaka qalabaynay City Plaza Burca anaka qalabaynay qaybta cusub imika ku dareen Ramad Hotel oo Burca hadday tahay xitaa Cigaal Hotel oo Burca isagana isha Caynaba oo Caynaba ku yaala anaka isagana qalabaynay muxuu ahaa Surat Hotel oo Hargeysa mid kale oo Amran la yiraahdo idaacada ku yaala marka la isku far badan yahay haddana imika israada customerskayga xagga qaybta waaweyn aanu qabanay sheeg dawlaha laga bixi maayo barnaamijkuna aad buu yara koobay baan filayaa inta badan waxyaaba waddanka gudihiisa lagu sameeyaa way ka qaalisan yihiin kuwa dibadda ka yimaada iyadoo oo aad moodaba in kuwii dibadda ka imanaya intaas oo cashuurood soo marayay ay ka jaban yihiin kuwa waddanka lagu sameynayay idinku tiinu waddanka qalabkan aad waddanka ku sameynaysaan ma ka jaban yihiin kii dibadda laga keenayay horta su'aashaasi waa mid aad iyo aad u wanaagsan oo marka ay dadku noo imaadaan un bay fahmaan faraqa weyn oo kala dhaxeeya oo waxa weeyaan waan aad baan ugu faraxsanahay su'aasha ay weydiiso sababta oo ah annaka hadday noqoto alaabtan u iibina Chinese oo kale waxa weeyaan markaan ugu yarnahay alaabaha qaarkood 30% baan ka jabannay waa marka koowaad dhowr qodob xagga isku daba jira marka labaadna waxa weeyaan quality-ga 100% ka wanaagsan yahay oo la isma barbar dhigi karayo waxa weeyaan alaab la soo dajiyay iyo alaab xaggan lagu sameeyo cidii sameysay la garanayo oo la keenay Britol la oranayo imika nade muxuu ahaa xaggan ha ku sameeyaha inta waxa dheer annagu waxaan u offer garaynaa hada jeer customerskayga caadiga ah services gooniya oo alaabti marka wax ka noqoto waanu hagaajinaa oo waxa weeyaan 2 year service bonus annagu alaabtii uu noo keenaa ama isaga ayaa soo iibsada wixii ka jabay hadii kalena waa loo qiimeeyaa waa loo soo iibiyaa waa loo sameeyaa marka idinku adeega bixinayeen bilaasha laakiin qalabkii isaga wixii ka jabaysan kulli badanka waxa weeyaan qof de kursi sibana si caadi ah loogu talagalay loogu fadhiistay dadii kursiga dhinaca loogu tuuro jaba cagti waxa weeyaan de shirkadii qabamaysa qofkii weeyaan baday khalad kale laakiin se waxa anaga xaqayga ka yimaada laftarkeeda waan cover gareynaa inta soo kaliya kuma taagna waa marka anaga xaqay ciladu tahay waa takoobaataasi ee ugu muhiimsan ee lagu kala duwan yahay xagga Chinese-ka talabaad waxa weeyaan alaabtu waxay leedahay tayay leedahay waxa weeyaan qofkii maanta iibsaday 5 sano ka hor madbaxeedayada kale oo aad iyaguna u socda xagga kitchen cabinetski dibadaha cabinetski la gashanayo xaafaduhu imika sameystaan oo waxa weeyaan dadkii imika ka daaleen kii dharigii hore ee la sameeyay marka xaafaduhu dibadda ka dhigaan xaggan gudahana waxay ka dhigaan waa kitchen cabinetski madbaxyadii oo de loo sameeyo marka shilafiyadii oo dhan ya imika mar aan yara laweyn qaran tusiyo kala kamid aha ya kuwaasoo kale iyo marka waxa weeyaan dadkanu 5 sano u sameeyno kala ka hor mar xilligan bilownay qaybtaasi de waxa weeyaan wali gamba waxa kama noqon waxa ugu badan qofka ka cawda waxa weeyaan waa gacan oo kale qofku yara sameeysan gacanta la soo yara qabanayo waxyaabo yar oo iska maayna waxa ka warqabnaa imika qalabyada dibadda ka yimaado oo kale waa set complete oo isku dhameystiran waxa la iibiyaa idinku una ma sidaas oo kale wixiinu ay yihiin in complete ka sidaas isku dhameystiran loo qaato sidii laftiinu qofku wixii kale uu u baahdo waad u kala sameeynaysan oo qofka baahidiisa ku xidhanta horta waxa weeyaan fursad xagga dadka wax iibsada ama dadka guryahooda qalabeeya haday tahay xagga guur imika dhalinyaro badan oo maasha Allah imika dalkii guurka ku soo badanaya ya marka waxa weeyaan fursad iyaga laftirkooda u soo korodhay weeyaan
berigii hore fursadda keliya haysteen waxay ahayd inay xaggaa tagaan oo ay iibsadaan kabar weyn oo 6 albaaba iyo sariirtiisu isaguna weyn iyo meel wada qaaliya ay galaan oo dee inankii u goyn kari waayo markaa gurgurkii dib u istaago iminka dhiirigelintan laftarkeeda waxay ku samaynaysaa anagu alaabtii mid baan u samaynaa qofka hadduu doonayo kabar 2 albaab oo keliya gooni baa looga iibinaya sariir 2 nafar oo keliya hadduu doonayo gooni baa looga iibinaya kursigeedii dhinaca la dhigay hadduu doonayo gooni baa looga iibinaya oo wixiiba qiimihii wada yahay dee wax macquul ah ee lagaga wada iibinaya marka alaabtay iminka tusaale ahaan oo kale alaabaha inoo imaada biifeega iyo lama kala saaro iyo qadada oo way isla socdaan lama kala qaadi karayo wax la odhanayaa way isku soo degeen anaga wax weeyaan goonina waa loo iibsan karaa biifeegii oo hadduu qofkii nashqadaasi jeclaado nashqad kale xaggan ku jecda kuraasteeda hadduu jeclaado taasuu ka dooran karaya marka anaga waxa weeyaan qaybtaa weyn ayay dadka u faa'iideynaysaa oo waxa weeyaan dhalinyaradii xitaa slide ayr guriga iska qalabeeya fursad baa soo korodhay xaafadii waxa weeyaan qayb yara bedelay soo kariya waxa weeyaan way bedeli kartaa hadii dadkii gooni u waday in isla wada socotay iibsanayay way iibsan karayaan fursadu aad bay u badan tahay waxyaabo kale oo adeegyo kale oo aad dheertihiin kuwii dibadda ka imanayay miyay jiraan horta waxaa jiro annaka waxa weeyaan qofka ee ugu muhiimsan xaga customer-han waxa weeyaan alaab dukaan qof uu gali karaa uu dooran karayaa waxa hayeenay lahaayeen wan haynaa wan iibinayna taasi waa gooni laakiin se waxaan anagu ku soo korinay dalka ee aan hore u jirin imika dee horta warshadeedan oo kale laftarkeedu waxaan ku soo korinay laakiin sita intaasii dheeri waxa weeyaan alaabteeda xitaa custom made weeyaan oo qofku wuxuu odhan karaya alaabtan haddii uu dee aqalkiisu aad u ciriiri yahay wuxuu odhan karayaa walaal aniga sirteedu ima qaadaysa tii 2 nafareed mid 380 ka hayde aniga waxaan doonayaa mid ka yara kooban wuxuu odhanayaa aniga saa igu yara sameeya anu nashqadaasi ii sameeya xitaa hadduu intaasi qofku wax sii dheer doonayo dadku badankooda nashqaday noola yimaadaan waxay dhahdaan taa ii sameeya ama dukaankayga shalafyada habkaasi aan kala soo baxay internetka iyo dee moogtay kala soo baxay internetka kuwii Yurub oo kale la socda kuwii caalamka oo kale ayaan doonaya war halka igu habeeya annagu waanu sameynaa marka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ay dadku ka faa'iideysan karaan wax xagga laftarkeeda maxay yihiin qorshayaashiina dhow mustaqbalka dhow iyo kuwa fogba horta kuwa dhow haddaynu ku horeyno kuwa dhow iyagu waxa weeyaan in imika suuqa Somaliland annagu caadi baan ugu provide garan karnaa furniture ko dhan waanu dabooli karaynaa baahideeda laakiin hadda waxa weeyaan hadafkaygu waxa weeyaan insha Allah 2015 marka sanadkan gudihiisa insha Allah waxaan doonaynaa inuu baahidaasi aad u daboolanto oo laga maarmo alaabta dibadda hadii ay beedo tafog hadaynu eegnana waxa weeyaan inaynu noqono dal wax soo saar leh oo waxa weeyaan innakii wax la inoo keenay inuu dalalkeena jaarka aynu iibgeyn karnaa alaabteen oo hoosina kaga qornaato made in Somaliland taa laftarkeedu wax weyn horumar la gaaray hadii ay beedo waa tahay runtii markaad hawsha intaa la eg haysaan kulli caqabado badan baa idinka hor imanaya maxay caqabadaha idinka hor yimaadaan horta caqabad kastoo timaada waxa weeyaan de haddana waxa weeyaan dadku markay moogtay business ku jiraan waana la imaadaan habkii loo xalinayay wax kastoo ka hor imaado waa inaad xalisoon caqabadaha horta naga hor imaadaan annaka waxa ugu badan waxa weeyaan xagga badanka raw materialka innaka dalkeeni qoriga kama baxo oo qoriga ka baxa waxa weeyaan de kan alaab qorigan dibadda la inooga keeno iyo keena marka loo eego waxa weeyaan de horta wuxuu u baahan yahay qoriyaha dalka oo dhan la wada goynay de waxba nagu dhici bilaageed innaka imika dib u beeraynaba oo dhuxul baa badankeedii loo wada gooyay marka waxa weeyaan in aynu sameeyno hab looga maarmo kaasi weeyaan marka raw materialka ayaa ugu badan oo caqabad ah oo marka koobaad waxa weeyaan xagga markabka soo raraya waxa weeyaan waa kharash midhan iyo cashuurtii baa iyaduna la socota iyadoo raw materialka intaasoo dhan ku soo dhacday ayaa haddana alaabtii sugaysa marka waxa xaggaas oo kale tusaale ahaan oo waxa weeyaan xagga raw materialka hadii la keenayo alaabtiina xaggan lagu sameeyo de marka waxaan competitive say price u noqdo alaabtii dalka lagu sameeyay laftarkeeda xagga dhiirigelin baa ka iman karta laakiin anaga waxa ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee xagga raw materialka dhinaca macaamiisha bulshada idinka iyo idinka dhaxaysa wax caqabada ah miyay jiraan iyo wax mugdiyo jeclaan lahayd inaad qasaan horta waxa weeyaan
way wanaagsantii inaad weydiiso dadka customerka noo imaada waxa weeyaan badankoodu markay alaabtii iibsanayaan waxa isku compare gareeyaan waa alaabtii Chinese dibadda laga keenay ama Turkiga laga keenay iyo tii dalka laba ku kala duwan labaduna waa mid aad u muhiim ah marka koobaad xagga qiimaha iyo xagga quality ya waa labada aad ugu kala muhiimsan marka waxa weeyaan qofkii customerka ahaa waxa weeyaan habkii looga dhaadhicinay laftarkiisa ugu sharaxaysay de waxa marka afka waxa laga hadlayo iyo way kala duwan tahay marka taabsiinayso marka qofku wuxuu soo istaaga badanka markuu taabsiinayo wala waxaanu ka hadlaynaa oo kan ama de meheradii markuu galo ee uu eego ayuu arkay quality shayga aanu ka hadlaynay sidoo yahay iyo culeyskiisa iyo tayadiisa ya watahay dadkii aad u sameyseen iyo customerskii faraha badnaa ee aad markii dhaweyd sheegisay iyagu markii ay qalabkii qaateen fariin caynkii maxay falcelin caynkii ka jawaab celin caynkii ka bixiyeen iyaga horta jawaabtoodu waxa inaka oo aan xitaa aan oran hebel saasuuri ama saasana loo amaanay waxa tusaale wanaagsan nagu filanba customerkii anaga 2003 2004 na soo galay wax iibsanay wali uu nala jooga marka taa lafdirkeeda jawaab wanaagsan nagu filano waxa tusaysaa alaabteeda kalsoonida dadkii ka qabaan iyo si ugu dhiiran inay tan iibsadaan taa lafdirkeeda tusaysaba waxaanu ku guda jirnaa sanadkii 2015 oo bilow ah runtii dad badan oo waxa jira laftooda aqal galayo oo 2014 haday tahay de meheradoodii dhaceen oo ahaa sanadkii ugu guurka badnaa iyaga laftooda maxay tahay fariinta aad jeceshay inaad u dirayso aad ka golden furniture ahaan aad ugu talagasheen wallahi hortay marka hore waxaan leeyahay balyo intii guur damacsanna Allah idin fududeeyo hadii ay beedo intiina guursatayna Allah isku kiin barakeeyo taas waa marka koobaad xagga shirkadaha waxaan leeyahay hortay bal intaayna xagga dhinacyada kala u leexan hortay bal xaggan eega waa marka koobaad marka labaadna waa dadka cusub ee guurka ku cusub oo dhan waa soo dhaweynayna insha Allah waxay jeclaadaan oo dhan way naga helayaan takale ugu muhiimsan waxa weeyaan diskaan wanaagsan oo siin waxaan jecelahay bal fariinta aad u gudbinaysid dhamaan dadka televisionka qaranka ka daawanaya ee daafaha dunida ka daawanaya dadka waqooyiga Mareykanka dadka Yurub dadka oo la fadawal adduunka oo dhan ka daawanaya fariinta golden furniture ahaan aad u diraysan maxay tahay waxaan leeyahay fariinta ugu muhiimsan horta waa idinka arkaya dalka wax kasta oo lagu qabsan kara ya caalamka kale inuu aragnay markay noqotay inaynu shay kasta dib uga soo waaridno waxa weeyaan inuu xaqeenu ku socno waxa weeyaan inay iyaga laftirkoodii inaka alaabta xaqeenu xaqan ka keenay qof kastaba xaq dalkii maal gashado waa marka koobaad waxa taayada ku filan tusaalana dawadinka arkay golden furniture inay tahay success story ya annaka hiigsanayna intaanu cover gareynay dalka baahidii taalay inuu dalka jaarkiina u gudubno hadii ay beedo marka ayaga intaas tusaale ugu filan inay ku dhiiradaan dalkooda inay maal gashadaan inay wax ka qabsadaan hadii ay beeyno لعك بنقيلا أوتار بنانك غار وشيلو هدي بطلوه بنانا مال قبينا لعك بنقيلا أوتار بنانك غار وشيلو هدي بطلوه يا قوم على بقي وصوتار لو بديوة وشرفنا نعيد الشام فصاروا شوش الشمس دولنا بعدو سقاط سيسفركم بعضا تقاروا بري هروب وغوك ليلارو كما ويكم باين
daawadayaal barnaamijkeena intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkani mid lamida ku kulmi doono anigoo maxamed ciise adana cabdiraxiim muuse yuusuf iyo baxdi kale nagala qayb qaato idinkaga teginaa waqtigu haydin wacnaado goob walba oo muuqaygu idinka soo gaarayo دقالوا